بسم الله الرحمن الرحيم وحيرتها دي هذا الكي عالعيدنا ولا جوجا تدكينا ولا داري وحيرتها دي سعيد يا هذا الكي وحواقاتي يا علي ورن عدي أيا وحبر ريبين odayaashii waaweynaa hore way soo koobkoobeen wixii aad oran lahay mowduuc ahaana way sheegeen intaasay noogu dhan tahay haddii wax la faahfaahinayo odayaal salaadiin siyaasiyiin intii ka hadshintay tii way igu dhan tahay hadal badan oo kala geli maayo waayo halkan imika sharxi bayna dadkani waxay lala faahfaahin maayo waxay qaranka u soo qabteen waanadan badan ee saakalooda waxaan isweydiinayaa hadday odayaashii waxa akhira jiray iyo wax daala noqdeen oo raggii ay dhaleen waddadii aabbayaashood may ka leexdeen taana hore umaan arag waanadaa ku badan anugu waxaanu idiin tirsanaynaa oo Soomaaliland ka firaysa oo laydinka sugayaa inaad saa taladii nabadda kaana uga qaadeen kana uga qaadeen sidii baan idinku ognaa nabadii halkaa dhigtaan baa la eegayaa maanta waa laydinku aaminay waa hirgeliseen waa isku dhaxasheen talada nabadda qaranka iyo weliba hargeysa inay nabad ku waarto teesiyaan ibna gacantiina ku jirta ta ugu muhiimsanna waa taa aniga xisbiga kulmiye ee aan odayga u ahay ee ka sharaxanahay sidii nabadda idinku aaminay iyo talada ayuu idinka sugayaa waana iyo dardaaran iyo dee dadkii u baatiin caqliga laha hadday odayaasha dhinteen ubadkoodii baa jooga rag iyo dumarba taasi waa xilidii yaalla nabadii xaggay taallaa haddaba maanta nabaddan la sheegaya ma cid baa cid ku gaadaysa oo cod ku doonaysa mise waa jira khatar jirta in nabadda la ilaaliyo laydin weydiiyo waryaala nabadii kala joogay xisbiyaad ayaa maanta tartamaya dagaalkii hore qabaal buu ahaa xisbiyaad tartamaya labada xisbi ee laga baqaya inay nabadgelyada xumeeyaana waa wadani iyo kulmiye anigu haddaan halkaan ka ballan qaadayaa in nabad darro looga baqi maayo xilkii qaranka ay hayaan mas-uuliyadda koowaad baa saaran nabar kastoo lagu dhufto iyo dhirbaaxo kasta iyo cay kasta iyo aflagaada iyo khalkhal inay nabaduuna ilaaliyaan mooye doorashada waxa ka weyn qaranka iyo nabadgelyada in la ilaaliyo inuu qof la doorto halkaasuu ku socdaa oo diin taagay xisbiga kale siyaasi laga sugaya laakiin dareen baan qabaa waa maxay xisbiga wadani dagaalkii dhacay ee cadowga iska soo raacay ninkii dhigay ee fidmadaas sameeyay ee qaranka khiyaameeyay isaga afiska qarto waxa ninkii ay u doorteen gudoomiyaha baarlamaanka ee dalka ninka saddexaad ahaa ayaa dalka khiyaameeyay warwarku wuxuu ka joogaa ninkaasi markuu dantiisii burtuu qaranka halkuu doonaya dhigay ila waa ninkii saddexaad dalka ee gaadhigii brotokoolka baarlamaankana uu siiyey in adeerkii oo markaa meesha ascaanood joogay wuxuu meeshii waan iskaga tegay weligeena daacad maan ahayn fariid markiisuu sheegtay xisbiga wadani weli maynaan maqal go'aanuu soo saaray oo uu leeyahay khayr waddan buu ahaa oo dalka uu ka baxay oo beri baanu ka nahay anuu ma haysaan idinkaan idinka sugaya ninka halkaasaas u yaalla inaad doorasho ku raacdaan iyo inaad dalka badbaadsaan idinkaa idin taalla ama beri ka keena wadani ama beri ka keena maanta qabaayil ma lihin marka waxaan leeyahay reer badar wanaag reer cadaadley reer saba wanaag waxaa la rabaa ammaanadii laydiin dhiibay inaad sideeda u ilaalisaan xisbiga wadanina wax kale anugu ka sugi maayo marka go'aan ka soo saara caalamku og yahay oo hore ninkaas waa naga beriyo xisbiga waanu ka helin sanad baa kasoo wareegayaba idinkan waa idinku kalsoonahay qarannimada haddaad tidhaahdaa war adiga kuma doonayno ninkaa wanaagsan baanu haynaa xaq baa u leedihi qarannimada waa loo simaya laakiin waxaan idinka maqlayn ninkii qaranka rogay ninka weli gosha ay ugu haystaan dee igu odhan maysaan dalku kaa lex jeclbadii aad iyo aad ba umahadsantihiin soo dhoweyntii weynayd ee qiimaha badeen waa idinka mahadnaqaynaa cadceedda aad taageereen qofna aanu xamili karin waa idinka mahadnaqaynaa qaranka nabadda hore u soo qabateen iyo kaalinta kaga jirtaan waan idin mahadnaqaynaa